magacaaga iyo sida u dhacan basharaxad naga sii iyo maqdada jirto magacayga horta waa Faadimo Cabdulqaadir Xasan magacayga waa Faadimo Cabdulqaadir Xasan ahaanteedana waa 19 jir sida horta waxa u dhaceen waxa dhacday galbaha kamid ah ninka lagu magacaabo Jibriil Cabdi isoo telefoon kareeye in badan waxa maanta isoo telefoon kareeye Jibriil Cabdi wiilka lagu magacaabo in badan nationkaygu asiga aqoon jiray laakiin muusan aqoonin hormuudkayga galbaha kamid ah iyo nationkayga ana xaafadeena soo wacay xaafada aan joogin kama qana xaafad kale Balaxia joogay hormuudkayga gaar walaashay soo siisay markay soo siisay way soo wacay lambarka Afrika ayuu soo wacay labada lambarada hormuudkooda waan wada aqoonin markuu soo wacayaan ka qab telefoonkiisa waa markaan dhahay soo ka sheegay markaas aan dhahay in maxaad rabtaa wuxuu igu jawaabay in barnaamij alaab yar aad soo qaadaysaa wuxuu dhahay gaariyan ku soo diraya soo raac gaariga salaada si soo qaad markaas ayaan ugu jawaabay maxay tahay alaabta ana ku sheego doono gaariyan ku soo dirayo ku adkaysto markaas mar kale aan ku celiyaan dhahay in gabadh kale aad garanaysid baad u dirsatid alaabta wuxuu dhahay hadda gabadh kale aad igu dhow alaabta si soo qaadi karto adiga ahayn ma jirto kadib maxaan dhahay waan ka ogolaaday hayaan dhahay gaariga ayuu soo diray waan soo raacay gaarigii sidoo ii soo waday wuxuu keenay XP hore anigoon ogeyn halka laga wado iyo alaabtu waxa ay tahay XP hore markii uu keenay waxaan soo galnay guri ninkii darawalka ahaa wuxuu ii sheegay gurigaas soo jeedo albaabkiisa uu furan yahay ee gal ayuu ugu dhahay kadib waan galay gurigii markaan galay Jibriil iyo Afrika meesha wada fadhiyaan arkay Jibriil albaabka agtiisa taagnaa Afrika meesha fadhiyo ku qaylaayay bas markaan guriga u galay Jibriil isla markii albaabkii ayuu sakatooro ku dhigtay dabadeed Afrika meesha bistoolada iga soo taagay markaasaan dhahay Cabdil Casiis ma la isku ciyaarayaan hadda maxay tahay bistoolada markaasuu igu jawaabay ciyaar mahane waa dhab markaasaan dhahay maxaan iga haleeyaan dhahay oo bistoolada maanta igu qabateen markaasuu igu jawaabeen wax walba maanta jaanis aan ku heesanaa wax walbana waan ka samaysan karnaa inaan adigu waxa tahay qof kibir badan oo isla weyn markaasaan ugu jawaabay aniga waxa meeyay xilli maqrib ayay ahayd waxaan ka codsaday inaan salaada maqribka aan tukado way ii ogolaadeen horta waan tukaday markaan salaadii tukaday ayay qol fadhi ah meesha joodar soo fidsadeen dabadeedna alaabtii ay ku qaylayeen meesha geysteen kadib Jibriil Cabdi sidoo sheegay wuxuu rabay inuu shaqo aado habeenka shaqo qorna sanfilaayo soo asiga afkiis ka dhawaajiyay dawlad markaan meeshii aan ku tukaday wuxuu dhahay soo bax halkaas tag markaasaan dhahay ma yaan dhahay aniga markaad idishaan halkaas irkeysaneystaan ilaa wax walba horta way dhacaan markaan ku adkaystay in badan ay darbaxshay ugu dhigteen markay ugu dhigteen darbaxsha madaxii idil ay wareeray way qabteen meesha joodariga lagu tuuray Afrika meeshu fadhiyo bistoolada madaxayga saaray Jibriilkina sidoo doono ay geeshtay uu baxay dawladna markuu baxay Afrika meesha ku soo haray anigoo yaaban wax sameey aan garan la sharafteedin uu ku tuntay haddana waxa la gaaray xilligii cishii waxaan ka codsaday inaan cisho soo tukado waan soo qabastay cishaan tukaday dawlad wuxuu ii keenay Afrika casho markaasaan dhahay aniga casho ma cuni karo waxaan u baahanahay inaan xaafadeeda aado markaasuu dhahay xaafadaada hadda ma aadaysid waad aaday laakiin hadda ma aadaysid lagu dhahay kadib waxaan kala ka codsaday xaafad kale agtiisa u dhow inaan aado wax yar ka soo qabsado markaasuu igu dhahay si aan ugu baxsado ayaan u dalbaday in xaafadaas kale aan aado markaasuu igu dhahay maya aniga igama aqli badnidooda inaad iga baxsataa doonaysaa adigu kadib waa iska dhaafay meeshaan iska fadhiyay si uu qaylay asiga maray 6 saac soo dhaway ayuu asiga qaylaadiisii dhameystay kadibna bistoolada asigana sidoo kale ugu qabtay sidoo doonan iga yeeshtay iyadoo saas ay tahay adana Jibriil mar kale dib u soo laabtay xilli 7 saac amal ay ahayd aniga marxalad ku sugan marxalad aad iyo aad u adag ay tahay aan saan isku dhaqaajixta aan garan karin dawlad Jibriilka hadana mar kale soo laabtay sidoo kale subaxdii waxaan soo baxay aniga aan socon karin dhibaatada hasan Ilaahay ogaa markaan soo baxay ayaan waxaan imaaday xaafadeedii Balaxia tagay
markaan tagay alaabta soo qaaday meesha ka shaqeynaysa alaab horta wili maanan u soo qaadan oo alaabtii meesha laga soo qaaday lamaysan ii sheegin gaariga oo kaliya waan soo raacay adii idaacada u shaqeynaysa markaas idaacad ma ka shaqeynayn kadib bacdal soonaan idaacadda STN tagay anigu markay haddeertaan waxaan u shaqeeyay idaacadda codka haweenka ee Kasma Radio كلي أنا وحن هاد أنا أتصل لها واحد هاي إن لمن كان لبعض ورت إيكستي ورت ما أنت ليك اللي إيكستي هذا إن شرفتي دي ورت دم وصلا وأنا سكو متى ذاك الحكتو إن وحن قبل أهل قرب ما أهل أنا ما أنا كورسني أيوة كنت بجيب واحد عويل مقد بشيء واحد عوينا ما نقول إلا ما أنا أقول بس درت تعود ملحن والد خايب لها مشكلة لكم قال والدكي قدام أشياء ورت عدي ذكرنا ما بشي قرنا كم بحضر دبك هذه قارمت كمان إنه إجارة حتى معقولة إنك والدك أنا قوتين فربضنا اللي صاروا إلا هاد معنا شيء عن تا هاي هاد فرين كان ما دام ورباهين مريا والدك أنا مغلان براس سلوسة ومعقول والدك ارتتا مركي أفريقيا شقي هذا أفريقيا هذه مقدسة شقي لأنك كلام سيد اللغة لما عليك ما هو إنه ننسر كالي هاي لأنك بيأسها ونوصل ده بقى منادر الدولة ده جبريل كنت شقي هذه مقدسة يو كاميرمان وياه أخوان أنت لا أقولها غير مفروض والله هرتو إن جبريل كأنا وحنا برتي كودي لولي ما انتهت وحنا كبرتي ما أنا برلهين محمد أبو بكر ما أذا أنا ما أنتص أنا وعريدي مقدسة شقي كرادنا أنا وشقي هذا سهر مركان وعي إن ما أذا وحود هاي ويل كسم قوس ودرا الباب أساك سوق بناي هاي عنده يصدر نيشين كي بسيط كهلي كده وقيمة جبريل كي وحول لها وهاقف نفس النمط كي جماعة نصين إن بدنا نيشين كي جو إسكين يستي نيشين كي يوصل بيعجل مرنا جورو لاش إسيجري وجل مرنا أنا هيست نيشين كي كده بعدي ما تنضم بصوت كهلي إنه نيشين كي ونمط كي يوصل هرو سلاسون يوصل وعجبرين نقط ما تصنبرت أقوان كلا تانو ليه هم عدل الأساس أفريقيا كورها ما كقانا لكن أصيغن أقوان هدوغوني أن أوليها نك صبيرتي ومجرتو مستقبلك أي ماذا يقول يعني ها هذا معك أصلا الدولة دي هذا أمني هذا ورد إن مشان الدولة ترتضوي نولا لطي دولة محان وجباق لها إن أي عدل الأساس أفريقيا بيني كان كله مقعد جبريل عبدي أي واحد قبطان مرحلة دي إن قبلها كل وقتين عيان إن بدل لقي يابي إن قبل كده ترى إنسان كل وقتين أما هرو وصل وقتين ما دام هذا المستقبل هو يا ري بدنا يوجست دول ما كان إن أفريقيا كوسينس دولة حنا كنا إن واحد قبطان عدل الأساس أفريقيا إن محكمة سوتكتو أنا عشان معنا كرا وحن أبها أنا هنا حافظة إذا مقصود هاي حافظة هذا ما أدري ست وأدري لكن هذا ما أدري ست اللي يقول هاي كتب وحن كلا قعد صلي حافظ كرا أكتسا أدو إن هذا وحير كسوق بصلا مقصود يقول هاي سيان وبحصل أيام أفضل بدنا حافظة كالآن هذا مقصود يقول هاي مايا أنا يوم أقلب بالنظر لأن هذا بحث تدوني سأذوق كتب واسكلا في مشان اسكفديه سوق قيلة يا سيجا مرة لحسة سود ربيب أيوة أسيجا قيلات يصير مستي كدبنا استولد أسيجا نصير وكله يوقف تصير دونا نيجي يشتي إذا أساس إطاعة دنا جبريل مركلة دي بصولاتي حلي تدوسها عمل أيه أنا مرحلة كوسو أنا مرحلة آدي وأذك أي تهاي أنا سان اسكول قاجحت أنا كرينين دولت جبريل هذا أنا مركلة صولات تصير ثلاثة سوحدي وحن صباحي أنا وأنا سعان كريم لوطيها سن إلهي أباك مركان صباحي يعني محن إمالي حافظي لي بلاكسيان تجي مركان تجي alaabta soo qaaday meesha ka shaqeynaysa alaab horta wili maanan u soo qaadan oo alaabtii meesha laga soo qaaday lamaysan ii sheegin gaariga oo kaliya waan soo raacay adii idaacada u shaqeynaysa markaas idaacad magacaaga iyo sida u dhacan basharaxad naga sii iyo meeqa da'da jirta مقعي قرطة فاطمة عبد القادر حسن مقعي فاطمة عبد القادر حسن دهانتي ذنا سجالي تونجر
sida horta waxa u dhaceen waxa dhacday galbaha kamid ah ninka lagu magacaabo Jibriil Cabdi isoo telefoon kareeyay in badan waxa maanta isoo telefoon kareeyay Jibriil Cabdi wiilka lagu magacaabo in badan nationkaygu asiga aqoon jiray laakiin muusan aqoonin hormuudkayga galbaha kamid ah ayo nationkayga ana xaafadeena soo wacay xaafada aan joogin ka maqnaa xaafad kale Balaxia joogay hormuudkayga gabar walaashay soo siisay markii soo siisay way soo wacay lambarka Afrika ayuu soo wacay labada lambarada hormuudkooda ma wada aqoonin markuu soo wacayaan ka qad telefoonkiisa waa markaan dhahay uu soo kaasheegay markaas aan dhahay in maxaad rabtaa wuxuu igu jawaabay in barnaamij alaab yar aad soo qaadaysa wuxuu dhahay gaariyan ku soo diraya soo raac gaariga salaada si soo qaad markaas ayaan ugu jawaabay maxay tahay alaabta ana ku sheego doono gaariyan ku soo dirayo ku adkaysto markaas mar kale aan ku celiyaan dhahay in gabadh kale aad garanaysid waad u dirsatid alaabta wuxuu dhahay hadda gabadh kale aad igu dhow alaabta si soo qaadi karto adiga ahayn ma jirto kadib maxaan dhahay waan ka ogolaaday hayaan dhahay gaariga ayuu ii soo diray waan soo raacay gaarigii sida uu soo waday wuxuu keenay XP hore anigoon ogeyn halka laga wado iyo alaabtu waxa ay tahay XP hore markii uu keenay waxaan soo galnay guri ninkii darawalka ahaa wuxuu ii sheegay gurigaas soo jeedo albaabkiisa uu furan yahay ee gal ayuu ugu dhahay kadib waan galay gurigii markaan galay Jibriil iyo Afrika meesha wada fadhiyaan arkay Jibriil albaabka agtiisa taagnaa Afrika meesha fadhiyo ku qaylaayay bas markaan guriga u galay Jibriil isla markii albaabkii ayuu sakatooro ku dhigtay dabadeed Afrika meesha bistoolada iyaga soo taagay markaasaan dhahay Cabdil Casiis ma la isku ciyaarayaan hadda maxay tahay bistoolada markaasuu igu jawaabay ciyaar mahane waa dhab markaasaan dhahay maxaan iga halayaan dhahay oo bistoolad maanta igu qabateen markaasuu igu jawaabeen wax walba maanta jaanis aan ku heesanaa wax walbana waan ka samaysan karnaa inaan adigu waxa tahay qof kibir badan oo isla weyn markaasaan ugu jawaabay aniga waxa meehi xilli maqrib ayay ahayd waxaan ka codsaday inaan salaada maqribka aan tukado way ii ogolaadeen horta waan tukaday markaan salaadii tukaday ayay qol fadhi ah meesha joodar soo fidsadeen dabadeedna alaabtii ay ku qaylayeen meesha geysteen kadib Jibriil Cabdi sidoo sheegay wuxuu rabay inuu shaqo aado habeenka shaqo qornaasan filaayo soo asii afkiisa ka dhawaajiye dawlad markaan meeshii aan ku tukaday wuxuu dhahay soo bax halkaas tag markaasaan dhahay ma yaan dhahay aniga markaad idishaan halkaas idkeysaneystaan ilaa wax walba horta way dhacaan markaan ku adkaystay in badan ay darbaxshay ugu dhigteen markay ugu dhigteen darbaxsha madaxii idil ay wareeray way qabteen meesha joodariga lagu tuuray Afrika meeshu fadhiyo bistoolada madaxayga saaray Jibriilkina sidoo doono ay geeshtay uu baxay dawladne markuu baxay Afrika meesha ku soo haray anigoo yaaban wax sameey aan garan la sharafteedii uu ku tuntay hadana waxa la gaaray xilligii cishii waxaan ka codsaday inaan cisho soo tukado waan soo qabastay cishaan tukaday dawlad wuxuu ii keenay Afrika casho markaasaan ka shaqeynay kadib bacdal soonaan idaacada STN taga anigu hadirtaan waxaan u shaqeeyay idaacada codka haweenka ee Kasma Radio kulli aniga waxaan had aan codsan lahaa waxay tahay in nimankan dhibaatada horta ii geystay horta maanta dhibka la ii geystay hadda sharafteedii horta dib u soo laabanayso ko midada kale xigto waxaan gabarniya ahayd garoob ma ahayd aniga ma aan kursanin ayuu ku duga jiray wax dacwooyin ma gudbisay wax dacwooyin ma aan gudbisay meel u gudbisay darta dacwad ma lahan waalidka ay walaha musharaad dhibkan gaaray waalidkii hadaan u sheego horta cideeda garnama gashay garna kama baxdo dhibka hadii gaaray mid ka weyn inuu gaaray xitaa macquul ah dhanka waalidka una qabteen far badan la saaro ilaa hadda uma aanan sheegin anta ay hadda fariintan maadaama warbaahin malaga waalidka inay maqlaan oo process lagu saaro waa macquul way dhici kartaa markay Afrika shaqeeyay Afrika Radio Muqdisho shaqeeya dhanka kalena sida lagu tilmaamo aniga ma huwa inuu nin sarkaal yahay dhanka biyaska oo noo dhawa munaadir dawladda Jibriil kan shaqeeya Radio Muqdisho iyo cameraman oo yahay aqoonta laga wada wallahi horta Jibriilka aniga waxaan bartay